Waa maxay sababta madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo xukuumaddiisu ay u baabi'inayaan ciidamada beelaha habar-jeclo ee SSB wakhtigan oo colaaddu meeshii ugu xumayd ay marayso? Su'aalo ayaa ka taagan xilligan ujeeddada loo sameeyey ciidamada habar-jeclo ee SSB. Ciidanka madaniga ah ee SSB ee habar-jeclo ayaa war ka soo saaray hadalladii xildhibaan Maxamed Abiib iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda madaxweyne Ciro, kuwaas oo gaashaanka ku dhuftay hadallada mas'uuliyiintaasi ay mariyeen warbaahinta. Aqoon-yahanada beelaha habar-jeclo ayaa qaba in xukuumadda Ciro ay iska indhatirtay baahidii loo sameeyey ciidanka SSB, in ay weli taagan tahay. Sidoo kale waxa ay wacad ku mareen in aan laga yeelayn xukuumadda Ciro baabi'inta ciidamada madaniga ah ee SSB habar-jeclo. Habar-jeclo ayaa ka cadhootay dhawaaqa xukuumadda Ciro ee burburinta ciidamada madaniga ah ee SSB. Shirar duceedyo ayaa magaalooyinka Burco iyo Hargeysa uga furmay habar-jeclo. Qurba-joogta habar-jeclo ayaa iyaguna wax lala yaabo ku tilmaamay burburinta ciidamada habar-jeclo ee difaacaya deegaanada habar-jeclo ee cadowgu uu kulaalayo. War-saxaafadeed ay soo saareen daraato waxa ay ciidamada madaniga ah SSB ku sheegeen in ciidanka madaniga ah SSB uu ku dhismay duruufihii colaadeed ee 2 sano ee ugu dambeeyey ka taagnaa gobollada Sool, degmada Buuhoodle iyo Sanaag, kadib markii colaado soo gaadheen deegaamadaasi. Si aanu ciidanka qaranka Somalilan u kabno bay yidhaahdeen, ugana hortagno cadowga duminta qaranka isu soo baxaystay. Ciidanka madanigu wuxuu uu fadhiisiimo ku leeyahay jiidaha hore oo ay kooxaha wana isku horfadhiyaan. Sidoo kale ciidanku wuxuu leeyahay maamul iyo kala dambeyn dhammaystiran. Wixii aan goobaha dagaalka ahayna ciidankeennu hub iyo ciidan midna lama galo. Odayaasha iyo waxgaradka beelaha habar-jeclo ayaa iyaguna si aad ah uga cadhooday, islamarkaana wax lala yaabo ku tilmaamay dhawaaqa ka soo yeedhay xukuumadda madaxweyne Ciro oo aan wakhtigan looga fadhiyin in ay hadalladaasi mariyaan warbaahinta, islamarkaana ay ku goodiyaan inay baabi'inayaan ciidamada madaniga ah ee SSB ee habar-jeclo.